السلام عليكم أصحابتا ku xiran kanaalka Naciim Studio ee Darul Khayr Media. Halkana maanta waxay idin ku soo gudbin doonaa barnaamijkeeni taxana ahaa ee qisooyinka. Qisadani waxay dhacday waqtiyadii ay noolaayeen ummadii hore, waxaanay ku saabsan tahay gabar socoto ahayd oo meel cidla ah iyadoo maraysa ay u dhamaatay waqtigeedii noloshu. Gabadhu waxay dhabarka ku sidataa ilmo yar oo bila kooban jira. dabadeed malagii nafta ka qaadayay wuxuu ka naxay ilmaha yar ee aanay cid la socon markii uu hooyadii dhinaca aakhiro u kaxeeyo, laakiin wuxuu filiyay amarka Ilaahay oo naftii ayuu ka qaaday. muddo dheer kadib ayaa loo diray inuu ka soo qaado nafta oday da' ah, balse malakul mawdku wuxuu la kulmay odaygii isagoo ul ka sameysanaya meel ulaha lagu sameeyo oo uu ku leeyahay ii adkeyd salka usha, waxa aan doonayaa inay in badan i hayso. malakul mawdku wuxuu ku qoslay odaygii da'da ahaa iyo sida noloshu u dhamaatay. dabadana Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayaa ku yiri malagii, sharafteydan kuu dhaartay, ninkan ka qosliyay waa ilmihii yara ee aad beriga ka ilmeysay ee cidlada joogay. subxaanallah, alla ma dayaco cid u abuuray, kumana ilaaliyo oo kaliya waalid iyo inay cidla joogto ee ilaalada iyo dayactirka dhinaciisa ayaa ka yimaada.